السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaada Soomaaliyeed waxaan la hadlayaa maanta khaas ahaan dhalinyarada gobonimo doonka. Dhalinyaro soo dhawaada marka koobaad iyo marka labaad isgaarsiiya dhammaan gobonimo doon meel walba ku sugan yahay isgaarsiiya video-gan. Halkaa waxa inooga muuqda waa madaxweynihii Soomaaliya wuxuu ka qayb galay xarig jirka biyo xireenka Ethiopia dadku waxay moodaan dadku waxa laga yaabaa inaan ka hadli karo colaadda inaga dhaxaysa iyo waxyaabaha iyo kama hadlayo. Ethiopia Soomaaliya waa laba dal oo deris ah, way derisna waa u dagaala waana heshiiya xagga iga dhig. Meeshaan taariikh ayaa ku hoos duugan. waxa weeye dabcan qof walba oo siyaasi oo Soomaaliyeed waa iga aragti dheer yahay wax badan oonan ogeyn wuu ogyahay. iyadoo inta badan la is indhatiro xaqiiqada aan la soo bandhigin. ururka gobonimo doon waxaan xasuusinayaa 1900 marka Ethiopia iyo colaadda iyo la sheegay wixii soo xasuustaan 1977 laakiin waxaan xasuusinayaa ururka gobonimo doon 1945 wax Soomaaliya waxay ahayd wadanka kaliya. Masar markaas yar way tabar yareed markay Israa'iil ay soo hajuuntay naf iyo nootba wadanka isugu daray ee u gurmada ee Israa'iil dharbaaxshada saxda ah ku dhuftay 1945 waa Soomaaliya. in badan ma ogin anagu da yartayna ma ogin in yar ayaa taariikhdaas garanaysa. halkaas ayay horta naga la qaaday Israa'iil colaadda ugu horeysay gurmadkii aan Masar u gurmanay nimankii iyaga daraadood na lagu colaadiyay een u heelinay ayaan maanta waxa madaxweynahayni wuxuu xariga ka jaraya oo dubbo u qaato garaacaya birtii lagu gowraci lahaa ninkii aan u takanoobay birtii lagu gowraci lahaa ayuu maanta xarig jaraya oo u garaacaya dubbihii lagu garaaci lahaa birtii lagu gowraci lahaa ayuu garaacayo madaxweynuhu soo saaray maanta waa ka xarig jaraya. waad aragtaa Soomaaliya arrintu ma qosayso Ethiopia iyo Soomaaliya maanta. arrintu waxay qosaysaa Masar, arrintu waxay qosaysaa Israa'iil iyo Soomaaliya. bixireenkaas dadku wuxuu arkaan wax weyn Masar oo maartay oo go'la oo maartay saameynaya Djibouti oo saameynaya Soomaaliya oo saameynaya wax ka weyn baa jira. wadada kaliya oo la inoo soo maraa waa Ethiopiadan siyaasadda ku lifaaqan ee wadanka ku rafanaysa ee warqad sax soo tuurta ayantii la yiri kamid ma ahan marka la cusboonaysiinayay mandate-ka iyo ciidamada shisheeye ku joogan wadanka kamid ma Ethiopia marka la yiri warqad sax ah way soo saartay tiri ka bixima wadanka weyn u hirgasho waa la saxiixay iyada ma awooddaas waa Israa'iil. maamul goboleedyada Soomaaliya maamul goboleed kamidana way soo dul gashay oo way ku milan tahay anigu waa maamulkaas maliha afaaraha galima xiniyaha wali ma yeelan maalinta xiniyaha yeesha Allah ay gaarsiiyo iyagana waan taabanay waa dul tagi doonaa waqtigeeda markii la gaaro nafta hadaan qabo. anigu waxaan leeyahay dhalinyarada gobonimo doon arrinkaas waxba laga qaban karaa ay wax aan ka qabanay damali waxba laga ma qaban kara maanta laakiin taariikhdu yeesay idaga dhumid ha fiirinaha geedkan idin muuqda hoostiisa waxa ku jira fiiri waxaad fiirisaan colaadda raagtay ee inaga dhaxaysa amaba ka dhaxaysa Soomaaliya iyo Israa'iil iyo wadooyinka ay soo marayso. bixireenkan Ethiopia boqosay waa la maalgeliyay waa taageer ay nimankaas soo fuulayaan ku imaan rabaan Afrika wayna u hirgashay waxa u hirgeliyay madaxda dalalka Afrika oo kamid yahay madaxweynahaagu ku qoro buuga ku qoro video-gan ila daawo.
Thank you.